الحذيفة بالذي قال الرسول. xarunta cilaajka ee Daaru Tawba dugsi malaha beent iyo dareen loogu aayay waxaan doorkan haynaa xarunta cilaajka Daaru Tawba. ilaah baa wax daweeya dadaalkaas halkii ah dabiib waa mahuraan ee xarunta cilaajka Daaru Tawba degdeg oo la xiriira haye dadka ruuxa bukoodo deganay nafsadiisa duulada ay la hareen la dawaafay ibliiska insha Allah daweeya dabiib ay ka helaan waa sax xarunta cilaajka Daaru Tawba waxay kugu daweysaa digriga iyo quraanka iyo dulahaan sunnada iyo daawareed la soo xulay habsami loo diyaariyay Daaru Tawba imika la xiriir insha Allah daahir haddaan u degdegayaan meeqa xabo masaamirta laba xabo masmaara iyo maxaa kale wariya hadal baa ku maxaa kale hadal wariya maxaa ugu talagashay ya mid inay naafa ku noqoto kan kalena kan kale in eedis laga soo sheego may maqlaysaa wariya ma yahuud baa tiamsa christian yahuudatiin ma bixaysan haayimay raafarta soo raafarta wariya raafarta wariya yana ku arkin ma wariya guur sixirka wax dilay iyo jinka doobinayo dabayshiya xanuunada isha iyo wax darankaba insha Allah dabiib iyo dawa loo helaayay Daaru Tawba ku hagaaga xarunta cilaajka ee Daaru Tawba cudurrada lagaga daweynayo waxa kamid ah isha qaybaheeda kala duwan sixirka qaybihiisa kala duwan xasidka qaybihiisa kala duwan jinka qaybihiisa kala duwan umursibiyaanka qaybihiisa kala duwan walwalka iyo walaaca qaybihiisa kala duwan xarunta quraan saarka cilaajka Daaru Tawba waxa kugu diyaara Dr. Sheekh Cabdullaahi Umar Cabdi Dawlo oo horay ugu howlgali jiray qaar kamid ah gobolada dalka iyo caasimada Soomaaliya ee Muqdisho waxaana dib loo casriyay xarunta magaalada Muqdisho ee fadlan horuga bishay balanteenu waa xarunta xarumaha ee Daaru Tawba xarunta cilaajka ee Daaru Tawba waxa ay ku taalaa degmada Dharkenley gaar ahaan intuu dhaxaysa Suuqliif iyo Isgooska Xoosh haddaba bixi faahfaahin intaas dheeri ah kala xiriir nambarada iyo ciwaanada shaashada idinkaga muuqda